soonka waa waajibaad diini ah oo ka mid ah tiirarka Islaamka, haddana waxaa la xaqiijiyay caafimaad ahaan in jidhka aanu ka maarmin. Jidhka ayaa fursad u hela inuu isbogsiiyo oo markaa cunitaanka, dheefshiidka, nafaqo-nuugidda iyo qashin-saarka cunnadii la cunay howlahoodii oo dhan jidhka aanu haynin, jidhku wuxuu u helaa fursad uu isku daweeyo oo uu ugu adeego halkii u baahan hawl gaar ah. Haddaba, xilliga soonka jidhka wuxuu carcar geliyaa nidaam loo yaqaan autophagy. Autophagy waa sistamka jidhku isku dayactiro oo unugyada duugoobay ee hawlgabka noqday ama gabay kaalintoodii unug ee jidhka ay u hayeen meesha looga saaro si aanay caqabad ugu noqon unugyada kale caafimaadka qaba ee shaqaynaya. Xilliga qofka sooman yahay, nidaamkan ayaa shaqeeya oo ka dhigo jidhka mid jooganaanta ah ama dhalinyaro ah. Haddaad soonka badsato, mar walba da'daada muuqaal ahaan waad ka yaraan, sababtoo ah nidaamkan autophagy-ga ayaa xoog ku shaqaynaya oo jidhkaagoo dhan waa cusayb. Soonka wuxuu hoos u dhigaa khatarta kansarka. Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qofka markuu sooman yahay, maaddooyinka jidhka ka mid ah kuwaasoo cadaadiya ama la dagaallama samaysanka unugyo kansar ah ay aad sare ugu kacaan. Kansarka wuxuu ka dhashaa unug jidhka ka mid ah oo dhaawac ku yimid, kadibna habshaqeedkii unugga khalkhal ku dhacay. Markaa kadib, unugga dhaawacan siduu doono ayuu u shaqeeyaa, siduu doonana wuu u koraa. Haddaba, unuggan dhaawacan ayaa fidiya dhaawaca haddaan laga hortagin ilaa dhiigga uu gaarsiiyo dhaawaca jidhkao dhanna uu gaaro, taasoo ah xaalad khatar ah haddaan marxaladaha ugu horreeya ee kansarka aan la ogaanin lana tacaalin. Haddaba, soonka ayaa si otomaatig ah u kiciya sistamkan autophagy-ga si uu uga takhaluso unugga dhaawacan ee aan shaqaynayn ama unugga aan wax hawla jidhka u haynin. Si dabiici ah ayuu jidhku u burburiyaa unug kasta oo waxtar lahayn dhib mooye, kadibna si dabiici ah ayuu meesha uga baxaa unugga halaysan. Alxamdulillaah, kun iyo dhowr boqol oo sano ka hor ayuu Nebiga sallallahu calayhi wasallam noo sheegay soonku inuu caafimaadka kor u qaado, lana dagaallamo caabuqa iyo xanuunada, halka ilbaxnimada casriga hadda lagu ogaaday